muuqaalkeena maanta waxaan ku qaadan doonaa inaan ku tuso qaabka loo sameeyo effectigan ama seerkashan uu qofku ku jiro intiisa hoosana ay ku jirto intiisa dambena intiisa sarana aanay ku jirin seerkasha gudaheega iyo qaabka loo sameeyo ayaan ku tusi doonaa. marka horeysa markaa waxaad tegaysaa file kadib new baad tegaysaa. anigu waxaan iska soo furanayaa custom size aan kugu tuso qaabka aad u sameynayso, laakiin hadhow qaabka aad adigu u isticmaalayso iyo saaska aad gashanayso adiga ayaa ikhtiyaarka u leh. marka waxaan sameynayaa 1080 by 1080 baan soo furtay. waxaan sameynayaa inaan sawirka marka hore soo qaato. sawirkan markaa waxaan kala soo degay google-ka, halkan aan tegay kadib waxaan sameeyay right click copy image baan idhi waan soo xidhay. kadib halkan aan imanayaa edit baan tegayaa, waxaan leeyahay best image markaan idhaahdo haddaba waxaan u baahanahay marka horeysa inaan shaqo qabto. marka shaqada u horeysa waxa weeyaan inaan background-ka iska saarno. haddaba saddex qaab oo u saari kartaa background-ka: inaad tagto quick selection tool intaad tagto kadib aad select subject taabato. select subject markaad taabato wuxuu sameynayaa si automatic ah in kuugu select gareeyo shayga ama subjectiga ka muuqda waxa aad soo gelisay ama sawirka aad soo gelisay. marka inaga subjectigu marka muxuu inoo yahay sawirkan ninka ayuu subjectigu inoo yahay. marka subjectigii markuu saa inoogu select gareeyo meelaha qaar buu ka tegayaa oo teknolojiyadda Photoshop inaanay select gareynin laga yaaba. marka kaa haddii aad aragto markaad zoom toolkaaga isticmaasho eed hand toolkana qaabkan ugu wadwado eed wada eegto selectionka, haddii aad aragto inaanu si fiican kuugu wada select gareyn waxaad samayn kartaa inaad intaad dib isaga durkiyo fit screen inaad idhaahdo aan kadib sameeyo inaan Ctrl D idhaahdo si aan u select gareeyo. qaabka labaad markaa ku select gareysan karo ee aan background-ka iskaga saari karaa waxa weeyaan inaan sameeyo quick selection tool aan taabto kadib aan anigu si automatic ah intii aan doorto sawirka aan u select gareeyo si automatic ah u select gareysto intii aan halkan maro meelaha aan uu ka tagtagay selectionka select subject markaad doorato meelaha uu ka tagtagayna inaad adigu si toos ah select gareysto. labada qaab horta waad uga saari kartaa. marka labada qaab hore markaad ka timaado qaab kale waxa jira aad background-ka isaga saari karto. qaabka kale waxa weeyaan intaan aan doorto eraser tayda aan tago kadib aan right click idhaahdo aan doorto magic eraser tool. marka magic eraser tool maxay sameynaysaa imika haddii aan halka background-ka click idhaahdo background-ka gebigiisa mar qura iga saaraysaa. haddana halkan meelaha uu background-ka iga hadhaaray ayaan ayar kolba click leeyahay. qaabka markaan background-ka isaga saaro waxaan sameynayaa haddaba inaan circle soo qaato. circle waxaan tegayaa halkan kadib circle baan soo qaadanayaa, shift baan qabanayaa, qaabkaasaan u soo weyneynaya. qaabka markaan u soo weyneeyo waxaan sameynayaa inaan halkaa dhigto kadib waxaan sameynayaa sawirkaygii inaan halkan keensado. marka horeysa waxaan doonayaa inaan sameeyo waxa weeyaan horta inaan ku adjust gareysto sawirka inta aan doonayo in aan ku sameeyo design-ka. iminkoo kale waxaan doonayaa intaa hoose in iga hadho oo intaa kaliya ay soo muuqato ayaan doonaya. marka u horeysa ayaad adjustment-ka sameynaysaa ama ku hagaajinta sawirka ee circle-ka ayaad sameynaysaa marka hore. markaad intaa sameyso kadib ayaad u gudbaysaa inaad intii hoose iska jarto. marka haddii iminka aan right click oo kale idhaahdo create clipping mask idhaahdo guduhu ii wada gelinayaa sawirka gebigiisaba. anna waxaan doonayaa in intaa hoosena gudaha ii gasho intan sarana ay dibadda ii joogto. marka maxaan sameynayaa right click baan leeyahay release clipping mask baan leeyahay. marka waxaan sameynayaa qaab selection ah ayaad intaa hoose iskaga jari kartaa. qaabkaasina waxa weeyaan iminka aan soo sarreysiiyo seerkasha kadib aan sameeyo inaan tago halkan aan tago merge use selection toolka kadib aan ellipticalka doorto. ellipticalka markaan doorto waxaan isku dayayaa inaan halkan tago centerka seerkasha inaan tago kadib waxaan sameynayaa shift iyo alt aan isla qabanayaa. waxaan sameynayaa inaan qaabka u weyneeyo u soo weyneysto. marka maxaan sameynayaa seerkasha iminka inta banaanka iga joogta selectionka iyo intan seerkashu ay dhinacan ka banaan tahay ayaan isku qiyaasanayaa. markaan qaabka isugu qiyaasto waan sii deynayaa kadib waxaan isticmaalayaa saasaan usoo durdurkinayaa selectionkii. markaan qaabka u dul keeno weliba aan soo dhaweysto si aan qaladaadka isaga ilaaliyo. iminka haddii aad arkayso selectionkaygu wuxuu ii dul raacsan yahay seerkasha dusheeda. marka maxaan sameynayaa fit screen baan leeyahay kadib waxaan sameynayaa inaan tago selection kadib aan doorto inferusku marka muxuu ii sameynayaa intan aan imika select gareeyay maaha inta kale ayaa lay select gareynaya. marka maxay noqonaysaa haddii aan click idhaahdo project intiisii kale lay select gareeyay laakiin intii seerkasha gudaha ayaa laga tegay. marka haddii aan sawirka imika kan kasoo kormariyo oo aan tago eraser toolka aan tago intaa seerkasha gudaheeda ku jirta ma masixi karo, laakiin wixii dibadda waa masixi karaa.
wixii dibadda agabiisa waa masixi karaa marka control z baan leeyahay marka maxaan sameynayaa waxaan iska masaxayaa intii aan doonayay in aan masaxo marka hore ee iga hadho marka intaan iska masaxayaa hoose ee aan doonayay inaan masaxo markaan qaabka u masaxo waxaan leeyahay control iyo d selection weeyaan marka waxaan sameynayaa inaan qaabkan aan sawirkii iyo seerka isla doorto aan halkan keensado marka xaggan hoose in baa iga hadhay muxuu ahay sawirka intan waxaan sameyn karaa inaan ayar haddana reset iska tago right click idhaahdo aan backgroundka marka hore iska saaro laba layer baa select garaysan waxaan sameynayaa marka hore inaan sawirka doorto kadib backgroundka marka saa isaga saaro inaan sameeyo eraser toolteeda aan intan uma baahniyo gebigeedaba iska wada masaxo kadib aan ayar haddana halkayga ku soo ceshado markaan intan sameeyo kadib qaabkaasaad u sameynaysaa waad u dhex gashanaysaa iminka waxaa la moodaa in intan hoose seerkasha ku dhex jirto intan sanna waad in dibadda joogta qaabkaasaad markaa u sameynaysaa waxaa kaloo inoo hadhay waxa weeyaan inaan sameeyo shadowgan yar inaan sameeyo waxaan tegayaa halkan kadib waxaan soo qaadanayaa ellipse kadib waxaan sameynayaa saa idhaahdo anoo sidaa babaca u dhigaya oo aan hoos u jiidin waxaan sameynayaa inaan halkan geeyo markaan halkaa keeno layerskan tegayaa double click baan leeyahay madow baan ka dhiganaya madow markaan ka dhigto waxaan sameynayaa inaan propertieska tago kadib aan maskinka tago featherka aan saa u durkiyo aan ilaa meelaha 29 gaarsiiyo kadib aan check idhaahdo ama aan in yar soo yar celiyo intaan doorto properties tago kadib masking tago aan in yar saa u soo yar celiyo si colorkuna si fiican ugu muuqdo intaasaan markaa ku deynayaa waxaan sameynayaa inaan tago markaa colorka ayaan iska bedelaya iyadana intaan fx tago color overlay tago waxaan sameynayaa inaan colorka ka bedelo colorka ayaan bluega ka dhiganaya kadib okay baan leeyahay kadibna okay baan leeyahay marka qaabkaasaad u sameynaysaa cashirku halkaas inoogu joogayaa badan haddii aad channel ku cusub tahay subscribe noo saar like noogu dhiirigeli wixii faaleed qabta commentiga hoose noogu reeb haddii wax su'aal aad qabtana waxaad iga soo weydiin doontaa telegram linkiga aan descriptionka dhigay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu